السلام عليكم أخياري فيلمكن waxa uu ku bilaabmay 2019 dhulkana waxa ku nool dad aad u badan badnaantii dadku waxa ay keentay inay yaraato cuntadu iyo wax kasto qof bila aadan isticmaalo waxayna ku dhawaanayaan dadku inay meedhaan United Nations waxay go'aansanaysaa in la dhimo dadka 5% dadka xunna la dilo kadib waxaynu tagnaa ardayda exam ka shaqeynaysa examkuna waa in qofka la eego garaadkiisa iyo caqligiisa qofka ku dhacay examku waa la dilayaa waxaana lagu mudayaa badsin waxaana dhinaca kale jirta arday la yiraahdo Liina waana macallimad waxayna baratay Simon oo ah arday primary dhigta waxa uuna ku odhanayaa xisaabta ma aqaan mise waxay siinaysaa qalab uga shaqeynaya oo ku gashay kara examka kale jira arday jaamacadda dhigta oo la yiraahdo Bilik aabihina waa maayirka magaalada Bilik aqalka ayuu ka baxsanayaa saaxiibtiina ayuu tagay wuxuuna u sheegayaa examka uu bari galayo gabadhu aad ayuu uga warwarsantay examka uu galay waayo qofka ku dhaca waa uu dhimanaya waxa uu sheegayaa inuu ku guuleysanayo examka mise waxa arkaya bodyguardka waxaana uu soo kaxaynaya xagga xafiiska aabihii waxa uuna la yaabay aabihii isagoo exam bari galay haddana uu baxsanayo waxa uuna ka odhanaya gabadha iskaga tago xiriirkeeda u jir waayo horumarkaaga ay hortaagan tahay maalinka labaad waxa la gelayaa examkii waxa imanaya arday badan saf ayayna gelayaan inta aanay gelin examka si aad u adag ayaa loo baarayo Bilik waxa uu ka dalbanaya Liina inay siiso baashii indhaha ee marka wiilka ay gelisay ay qishaysay examka laakiin waxay ku odhanaysaa imika ma hayo meel ay yaalaan ma aqaan intay Liina sii socotay waxay arkaysaa saaxiibadeed Kellen intii ardayda la baaray mise waa arday gacmaha ku soo qortay qalinka aan la arkin si uu u qisho meesha marka uu galo mise waa lagu qabanaya waxa uu soo odhanaya baxso laakiin isla markiiba askarta waa ay qabanaysaa examka ma jirto qof hore u qishay waayo si adag ayaa loo ilaalinaya wax yar kadib Bilik waxa uu laabta gelinaya intaanu examka gelin jacaylkiisa kadib qaacada examka ayuu soo gelaya examka waqtiga uu soconaya waa 2 saac ardayduna waxay kaga shaqeynayaan examka tablet Liini waqti yar oo kooban ay kaga shaqeynaysaa examka laakiin Kellen saaxiibkeeda examka ayaa ku adkaanay kuma shaqeyn karaayo marka uu examkii dhamaaday waxa la sheegay ardayda examka ku dhacday iyo kuwa ku baasay intaan la yeelin ardayda oo dhan waa ay baqaysaa askartuna waxay mid u kaxaynayaan ardaydii dhacday examka laakiin nasiib wanaag Liina iyo saaxiibkeed Bilik waa ay ku guuleysanayaan examka nasiib xumo qofka u dambeeyay loo yeeray examka ku dhacday waa gabadha uu jeclaa Bilik aad ayaa u naxaya kadib waxa uu wacay aabihii wuxuuna ka odhanaya ii badbaadi gabadha waan jeclay aabe waa uu diiday wuxuuna ka odhanaya qof kasta oo dhaca waa inuu dhintaa cid kastana waa lagu qaadayaa ciqaabta uu qalmo Bilik aad ayaa uu xanaaqaya wuxuuna u cararayaa dhanka lagu dilayay jacaylkiisa markii uu meesha soo gaadho waxa uu dilayaa askartii waxaanu ka odhanaya ka baxsa meesha markiiba waxa ku soo gaaray askartii kale waa uu ku fashilmaya Bilik ma jirto waxa uu sameyn karo si uu badbaadiyo jacaylkiisa sanad kadib haddana examkii ayaa la iska qaadaya waxaana ka hadhay examka 4 saac oo sanadka cusub waana examkii uu horeeyay ee Liina walaasheed gasho xasoo wacaysa macallimada Liina walaasheed waxaana ku odhanaysaa ii ilaali walaashii sida inaad dhasho oo kale haddaan dhinto wayna dejinaysaa Liina walaasheed waxaana ku odhanaysaa waad ku guuleysan doontaa ka cabsan sidoo kale Bilik waxa uu iska duubayaa video waxa uu odhanayaa bahay waa inuu ogaado waxa uu geystay examka waan shridaya waayo gabadhii aan jeclaa ayaa iga dhimatay maalinkii examka la gaadhay Liina waxay geenaysaa inantoodii yareed meel wax lagu barto yaryar waxa la tusayaa dhibka ka jira adduunka dadku inay bateen waxa loo sheegayaa sanad kasta in dawladaha oo dhan ay yareeyaan population-kooda oo dadka examka dhaca sun lagu mudo sidoo kale dawladaha qaar waxay sameynayaan in loo ogoliyay aabaha iyo hooyada ilmo kaliya sidoo kale dawladaha qaarna dadka da'da waaweyn ay sun siiyaan oo hore u dilaanba Amerikana waxay sameeysaa ardayda ayaa examka laga qaadaa ardayda ku baasta examka ayaa noolaata kuwa kalena way dhintaan carruurta sidoo kale iyagana waa laga qaadaya examka waayo dhammaan dadka wax dhigto oo dhan examka waa laga qaadaya waxa dibadda loo soo saaraya macallimada ardayda yaryareedna aad ayay u murugeyseen sidoo kale dhammaan ardayda yaryar waa ay ku guuleysanayaan examka dhanka kalena Liina iyo Bilik ayaa ku jira examkii waxaana loo sheegayaa in Bilik uu dhacay examkii aad ayuu xanaaqaya waxa uu la soo hadlayaa maamulka examka waxa uu ka odhanayaa natiijada bedel mise waxa natiijada looga bedelayaa Liina marka la soo dhajiyay Liina aad ayuu u yaabisay sababtoo ah imtixaanka si fiican ay uga shaqaysay marka loo yeeray dadka ku dhacay examka oo dhan nasiib xumo Liina ayaa loo yeeray dadka oo dhan way la yaabayaan waayo Liina waa ardayda koowaad ee sanadka kadib macallimada ayaa xafiiska u tagaysay marka dibadda loo saaro waxayna ku odhanaysaa ardayda koowaad ee galaaska weeyaan kolley wax uun baa qaldan ama wax ayaa la kala bedelay laakiin lama dhageysanayo waana la kaxaynayaa Liina waxa uu la yaabayaa isagoo waxba ka shaqeynay sidoo uu baasay habeenkii waxa xaflad dhiganaya ardayda examka ku guuleysatay Bilik aabihiina waxa uu isku soo sharaxayaa mar labaad maayirnimada magaalada una odhanaya Amerika waxay noqotay wadan bilaadil ah waayo waxa dhintay dadkii xunxuma oo dhan iyo dadkii khasaaraha ahaa
Bleak uu cadhoodo ayuu ka baxayaa xafladda marka uu arko waxa uu ku hadlayaa aabihii kadib waxa uu dilayaa askari ilaalinayay Lina iyo intii ku dhacday exaamka. Markiibana waxa uu tagayaa qolka laga eego kamaradaha. Askartu waxay ku odhanaysaa ardayda dhacday waxay xirtaan dhar kale oo loo diyaariyay kadib waxa la geenayaa qolkii lagu dilayay ee irbadda sunta lagu mudayay. Laakiin si lama filaan ah Bleak leedhka oo dhan ayuu ka jarayaa meesha. Markii meeshu madowaato ardayda ayaa ka faa'iideysanaysa. Meesha waxa ka dhacaya rabshad laakiin dhammaan ardayda kale oo dhan waxay ku guuldareysanayaan inay baxsadaan. Laakiin Lina furihii ayay ku furaysaa wayna baxsanaysaa. Kadib waxa imanaya meesha maamulihii exaamka wuxuuna weydiinayaa imse qof ayaa baxsaday wuxuuna ogaanayaa inuu kaliya hal qof baxsaday oo ay tahay Lina. Kadib Bleak waxa uu badbaadinayaa Lina kadib meel ayay wada fadhiisanayaan way wada hadlayaan waxayna dhex soconayaan meelaha hoose dhulka ku yaala. Waxayna ugu dambeyn gaarayaan meesha safarka exaamka saxayay uu yaalo. kala dadkii waxa loo sheegayaa inay jaamacaddu xidhantay sababta ay xidhantayna waa dib u habeyn lagu sameynayo. laga soo deynayaa meel kasta waxa ka dhacay jaamacadda oo dhammaan saxaafaddu way hadalhaysaa. Dhammaan sidoo kale waalidiintu waxay ka warwarayaan carruurtoodii gudaha ku jirtay. maayarkaas oo kacaya waxa uu weydiinayaa Bleak waa sidee. Sidoo kale Bleak iyo Lina waxay marayaan dhulka hoostiisa godadkii ku yaalay. iyagoo socda ayay waxay ku soo dhacayaan meel biyo ku jiraan mana aqaana Bleak tabaasha. Lina waa ay soo badbaadinaysaa waana uu suuxayaa Bleak. kadib ayuu soo kacayaa waxaanu iska bedelayaa dharka. meesha ayay isaga tegayaan si aan loo ogaan oo loo soo dabagelin. kiibana furihii ayaa Lina ka dhacaya waxayna isku dayaysaa inay soo qaado waxayna xadhig ku xidhaysaa magnet si ay ugu soo jiido furaha. hawsha qabanayeen waxa maqlaya askari waana uu soo gelayaa qolkaas. Lina waa ay baxsanaysaa mise Bleak ayaa ku hadhaya meesha. Lina waxay isku dayaysaa intuu askarigu maqan yahay inay furaha dhulka ka soo qaado mise askarigii ayaaba qabanayaba. si askariba ma aha waa Bleak oo dharkii askarta soo xidhay markii uu dilay askarigii. maamulaha waxa uu sheegayaa inuu nin dharka kala baxay Lina ay haysato furo albaabada oo dhan u furaya. kadib maamuluhu waxa uu isugu yeerayaa dhammaan macallimiintii si uu ogaado qofka Lina siiyay furaha. nimadii waxay sameynaysaa intii mid u sheekaysa ay furaha ka qaadanaysaa isagoon ogeyn. kadib waxa la qabanayaa ninkii furaha laga qaaday. waxa uuna weydiinayaa xaggee joogtaa Lina. macallinkani waxa ma ogaba waa daacad. maamuluhuna kama hadashiinayaba waxbuu ku dhufanaya kadib waa uu suuxayaa macallinkii. kale Lina waxay soo galaysaa qolkii sarfarka exaamku yaalay waxay ku furaysaa furaha mise waxaad arkaysaa inuu password ku xidhan yahay. kadib message ayay u diraysaa saaxiibkeed Kilin si ay u ogaato passwordka. Kilin waxa uu jebinayaa passwordka kadib waxay furaysaa natiijadii exaamka wayna arkaysaa. waxayba keentay 8% oo way baastay. waxay arkaysaa inuu Bleak uu keenay 15% uu haddana baastay. kadib waxay baaraysaa natiijooyinkii ardayda waxayna ogaanaysaa in natiijooyinka uu ku ciyaaro Bleak aabihii. natiijooyinka barkood been yihiin. Bleak aabihii ayaa waxaan oo dhanna ka dambeeyay weliba dilay jacaylkii wiilkiisa. kadib waxay u diraysaa saaxiibkeed natiijooyinka. marka uu soo noqdo leedhka ama nalku waxa uu ka arkayaa kamarada Lina oo sarfarkii exaamka eegaysa. ina arkaysaa inay kamaradu shaqaynayso kadib waa ay cararaysaa Lina. Mason ayaa arkaya waxaanu soo qabanayaa Lina. Bleak oo xidhan dharkii askarta ayaa soo gelaya qolkii ardayda waxaanu odhanayaa waa inaynu qolkan ardayda ka bedelnaa. kadib askarigii ayaa diidaya Bleakna waa uu la dagaalamaya askarigii. kadib askartii kale ayaa qabanaysa Bleak. marka ay ka furaan wejiga waxa ay garanayaan inuu Bleak yahay. isla waqtigaas Kilin waxa uu soo dhacaya faylashii ay u soo dirtay Lina. in natiijada exaamku aanay markasta sax ahayn ee dad gooniya ay ku danaystaan. kadib waxa uu dirayaa faylashii oo dhan dadka shaqeeya saxaafadda. dhammaan saxaafaddu waxay ka hadlaysaa in exaamku aanu sax ahayn. dadka qaar iyagoo dhacay ay baasi jireen halka dadka qaarna iyagoo baasay la dili jiray. kadib waxa lala soo hadlayaa Bleak aabihii waxa lagu odhanayaa bedel waxaan dhacaya haddii kale waan laga dejinayaa xilka. kadib Bleak aabihii waxa uu qabanayaa shir waxaana odhanayaa anigu kuma ciyaarin exaamka ee waa qalad ka yimid dhanka sarfarka. waxaanu ku odhanayaa qof kasta oo ku dhacay exaamka waa in la dilaa weliba isagoo og inuu ku jiro wiilkiisu. kadib waxaa la soo hadlaya Bleak waxaanu ku odhanayaa dadkii dhacay exaamka dila oo sii daaya dadkaanan dhicin ee aad beenta ka sheegaysaan. Lina ogow waxa ku jira wiilkiisa. Lina waxa uu imanaysaa Bleak wax walba ayay uga mahad celinaysaa. kadib waxa la soo qabanayaa dhammaan ardaydii ku dhacday exaamka waana la dilayaa. waqtigaasna waxa soo baxaya dhammaan ardaydii ku guuleysatay exaamka. kadib wuxuu Bleak arkayaa intii ku dhacday exaamka ee lalahaa waa la dilayaa oo ay been noqotay lamana dilina kaliya waa la suuxiyay. kadib waxa uu soo gelayaa meel aad u weyn oo dhulka hoostiisa ku taala mise Bleak waxa uu ogaanayaa in aan la dili jirin dadka oo dhan ee kaliya meeshan la keeni jiray. adoonsan jiray si ay shaqaale u noqdaan noloshooda inta ka dhiman oo waxaan oo dhan waxa ka dambeysay dawladda. isla markiiba waxa uu arkayaa jacaylkiisii sanad ka hor la yidhi waa ay dhimatay. aad ayaa uu ugu farxayaa. waxay shaqaale ka hayeen dhulbeerada ay dawladdu ugu samaysay si cunto looga soo saaro.
iyana waxa loo adoonsaday oo shaqaale looga dhigay si aan wax mushahara loo siin kaliya waxay cunayaan loo siiyo. akhyaaray filimkeenu maanta halkaas ayaa uu ku egyahay. waxaan filayaa oo rajeynayaa inaad ka heshay. ha iloobin inaad dhahdo subscribe, like, share. intaad samaynaysaan aniguna ka caagsismaa inaan maalinkiina farxad kaga qayb qaato. waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.